Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee duulaanka ka soconaya dalka Ukraine. Halka aad naga daawanaysaan waa janalka xogta dhacdooyinka. Haddii aan fiirino warbixintan, laba nin oo Ingiriis ah iyo mid u dhashay dalka Morocco oo la qabtay iyagoo u dagaalamaya dalka Ukraine ayaa maxkamad ku taala bariga dalkaasi ku xukuntay dil toogasho ah. Aiden Aslin iyo Shaun Binner oo Ingiriiska ah iyo Ibrahim Saadun oo Morocco ka soo jeeda ayaa lagu eedeeyay inay calooshood u shaqaystayaal ahaayeen sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Ruushka. Maxkamadda oo aan si caalami ah loo aqoonsan ayaa ku taal waxa loogu yeero Jamhuuriyadda Donetsk ee taageersan Ruushka. UK iyo Ukraine ayaa cambaariyay xukuumadda ku saabsan jebinta shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta maxaabiista dagaalka. Qoysaska Ingiriiska ah ayaa ku adkaystay in ay yihiin xubno muddo dheer ka tirsanaan jiray militariga dalkaasi Ukraine oo aanay ahayn calooshood u shaqaystayaal. Qareenka raggan ayaa sheegay in dhammaantood ay rabeen in ay raacfaan ka qaataan xukunka sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Ruushka ee taas la yiraahdo. Dhammaan saddexda nin waxaa lagu soo oogay in ay ahaayeen calooshood u shaqaystayaal gacan ku dhiigle awoodeed iyo in ay tababar ku qaadanayeen fulinta howlaha argagixisada ayay tiri Ria Novosti. Dowladda UK waxay aad uga walaacsan tahay xukunada dilka ah ee lagu riday Aslin iyo Binner waxayna sii wadaysaa inay kala shaqeyso Ukraine sidii loo sii deyn lahaa labada nin ayaa lagu yiri hadal ka soo baxay Downing Street. Afayeen u hadlay ayaa intaa ku daray in maxaabiista dagaalka aan looga faa'iideysan arrimo siyaasadeed wuxuuna farta ku fiiqay sharciyada dagaalka ee lagu dejiyay axyada Geneva kaasoo siinaysa xasaanad dagaal maxaabiista dagaalka. Xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss ayaa cambaareysay xukunkan oo ay ku tilmaantay xukun ceeb ah oo aan haba yaraatee wax sharci ah ku jirin. Fikradaydu waxa ay la jirtaa qoysaska waxaan sii wadaynaa in aan sameeyno wax walba oo aan awoodno si aan u taageerno. Wariye ka tirsan BBC-da ee Ukraine John Inwood oo la socda dhacdooyinka ka soconaya caasimadda Ukraine ee Kiev ayaa sheegay in raggan oo dhammaantood ku libisan dhar madow ay soo dhex istaageen qafis ku yaala qolka maxkamadda gooni ugoosadka ah oo si taxadir leh u dhageysanaysay markii xukunka lagu riday loo akhrinayay. Aslin iyo Binner waxay istaageen dhaqdhaqaaq la'aan iyaga oo madaxa foorarsan dhexdooda ayuu Ibrahim si argagax leh kolba dhinac u ruxayay. Gudoomiyaha guddiga garsoorayaasha Alexander Nikulin ayaa wakaaladda Interfax ee Ruushka laga soo xigtay isaga oo leh go'aanka maxkamadda waxa hagay ma aha oo kaliya xeer loo qoondeeyay laakiin waxa ugu weyn waa mabda' lama taabtaan ah ee cadaaladda. Aslin oo 28 jir ah kana soo jeeda Newark oo ku taala Nottinghamshire iyo Binner oo 48 jir ah kana yimid Bedfordshire ayay ciidamada markaasi Ruushku qabteen bishii Abriil. Qoysaskoodu ayaa sheegay in ay u dagaalamayeen ciidamada dalka Ukraine. Ninka da'da yar ayaa guursaday gabar u dhalatay dalka Ukraine waxaana markaasi la sheegay in labada ninba ay ku noolaayeen dalka Ukraine tan iyo 2018. dacaayad ka sareysa sharciga xildhibaanka Aslin Robert Jenik ayaa ugu baaqay safiirka Ruushka ee UK in looga yeero wasaaradda arrimaha dibadda si loogu xisaabtamo jebinta foosha xun ee sharciga caalamiga ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan muwaadiniinta ajnabiga ah ee u dagaalamaya ciidamada Ukraine ee la qabto ay xaq u leeyihiin maxaabiista dagaalka sida uu qabo sharciga caalamiga ah ee bani'aadanimada. Ruushkana oo mamnuuc ka yahay in uu ku xadgudbo cabsi geliyo ama uu kula dhaqmo si ka baxsan bani'aadanimada. Afayeen u hadlay ayaa tilmaamay waxa loogu yeero maxkamadeynta saddexda nin mid laga xumaado isaga oo intaa ku daray in dowladdu ay sii wadi doonto in ay sameyso dadaal kasta oo lagu soo deynayo dhammaan difaacayaasha Ukraine. wadooyinka noocan oo kala ah ee dadweynaha waxa ay danaha dacaayadaha ka sareeyaan sharciga iyo anshaxa waxayna wiiqayaan hababka isdhaafsiga maxaabiista dagaalka ayuu yiri. Gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda Tom Tukandi ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu fuliyay qaab afduub ah nooc argoosi ah. xildhibaanka xisbiga conservative-ka ayaa yiri ma ahan dawlad maxkamad ma ahan garsoorayaashuna waa dad dhar gashanaya oo iska yeelyeelaya
xaqiiqdu waxa ay tahay in tani ay tahay wax arxan darro ah oo lagu sameeyo 3 qof oo gabi ahaanba aan waxba galabsan. ururka isku magacaabay Donetsk People's Republic ama DNR waxaa aasaasay gooni ugoosadka taageersan Ruushka 2014. macadda in wax dil ah uu ka dhacay jamhuuriyadda gooni ugoosadka waxaana markaasi haddii ay dhab ahaantii jiri doonto isku day lagu doonayo in lagu toogto raggaasi. wariye ka tirsan BBC-da ayaa sharaxday in shaki yar uu ku jiro saraakiisha DNR in ay si toos ah amarkooda uga qaataan Putin iyo in xukuumaddu ay u muuqdaan xeelad kriminalka lagu cadaadiyo laguna ceebeeyo dowladda Ingiriiska taageerada military ee ay siiso Ukraine. ka hor duulaankii Ruushka ee Ukraine 24 February Putin wuxuu ku dhawaaqay inuu aqoonsanayo madax banaanida Donetsk iyo Luhansk, labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine. tallaabadaasi oo ay cambaareeyeen NATO iyo dalalka reer galbeedku. muddo uu soo galay duulaankiisa Ruushku waxa uu markaasi dib u dhigay hamigii uu ku doonayay inuu qabsado Kiev, taas bedelkeedana wuxuu diiradda markaasi saaray gobolka Donbass. Severodonetsk oo ah barta dagaalka toddobaadyadii la soo dhaafay ciidamada Ukraine waxay ku howlan yihiin wadooyin aad u adag oo ay kula dagaalamayaan Ruushka dagaalka oo ay ku doonayaan in ay magaaladaasi ku qabsadaan.